wasiirkii hore ee gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawladda TFG-da ayaa maanta u soo bandhigay qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Cabudwaaq iyo nawaaxigeeda inay ka qayb qaataan horumarada kala gedisan ee dalku u dhaqaaqay waxaana uu sheegay in garoonka weyn ee Cabudwaaq International Airport uu ka bilaabi doono hawlo la xiriira dhinaca markaasi duulimaadyada iyo sidoo kale kaargooga isagoo u soo bandhigay bulshadu inay qaybtooda ka qayb qaataan صدق نوع أو قاعدين كأولها بندور إن أنا قلبتها إن الله خير سنة من وقاعدين كأولها ودرك بيجي سكشة أما نور فهل كان يدعى ونشغل هاي إن العرش كبيرونه متكلمات نوعا إن عنه أيضا السلام كلام سمعنا كارجو كتير هايهم أما حوله يبقى قاضي أما حوله نور قاضي بدأت لوكي ومركز قرب وفاء يسكره إنه كوالد درس كلها أما هذا هو وقوي قلبك جرك أما هذا واحد هو كوفرت إياه فرق جرك إنه حتى أسوي مركز في الصور نوري أسير في مركز عربي في على سكيك هذا برنامج وعقب فلان كروك حتى ينولسه إن شاء الله برنامج استعد قوية إلى أن نولد يلا وين قاعدة سيوم مركز وين عطوا المرات اللي دولها عرب كيم هذا صومالي هذا طبعا مركز حوالي وصاصي مرات سكوت وياه كتير من الاستقبال اللي دارها يريم انت تلوه كارسيو دولها هذا هذا من لوه كارسيو مركز دولها كيم هذا أنا بقوله وين كارسيو هذا وحكمت على أدنى القوة ما أكلين على الغسل وحسوق العالم waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada oo soo dhaweeyay fikradiisa ku aadan duulimaadyada imika uu sheegay Cabdi Guuleed Maxamed Fargayax inuu ka bilaabi doono magaalada Cabudwaaq iyo sidoo kale gobolada dalka taasi oo sheegay in ay wax weyn ka bedeli doonto horumarka deegaanka taasoo waa mid noo keentay oo anaga isu ka xageeyay maanta intanada inuu Cabdi Guuleed uu soo biiro oo uu tixgeliyo dadka deegaanka u dhashay inuu marka koobaad businesska u sharaxo fursadna siiyo inay businesska ka qayb qaataan oo percentage-koodii ay helaan aniga waan wax kale ka wadinin oo deegaanka ka shaqeeya oo shaqo fiican ka haya runtii laakiin haddii hadda مثلا Cabdi oo kale uu deegaanka ka shaqeynayo waxa awoodi kartaa headquarterkiisu halkaan inuu noqdo oo si direct ah la xiriiri kartid share ma ka heshaan laakiin haddii مثلا shirkad kale ay timaado deegaanka oo ay ka shaqeynayso way kugu adkaanaysaa inay ku siiso mararka qaarkood inaad percentage ka heshid way kugu adkaanaysaa haddii contribution loo baahdo wadda halka laga dhisay hadda maanteeto access uma haysano inaanu shirkadaha qaar inta u tagno aan dhahnaa wadda aan dhisa laakiin waxaan heli karnaa haddii shirkadu marka hore bayskeeda halkan yahay localki dadka ahaan ay ku jiraan inaan ka dhaadhacsiino oo ay noo sahlanaato inaan dhahno waddada halkan laga dhisay wax ka dhisa marka taas waa benefit ay noo leedahay midda kaargooga oo waxay ka shaqeyn doontaa inay مثلا hilibka oo kala qaato xoolaha oo kala ay qaadi kartaa alaabtiina ay si degdeg ah ku keeni kartaa runtii farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galo arrinta maanta halkan la soo keenay oo wasiir Cabdi Guuleed ka soo jeeday oo sharaxay ka hor waxaan u mahad celinayaa dhaqdhaqaaqyada ka jiray magaalada runtii lagu diirsado oo ganacsi sida korontada biyaha xoolaha la xareeyo intuba waa ganacsiyaal dhaqdhaqaaq oo tusaale mudan oo magaalada hore uga jiray maantana waxaan dhiiri gelinaynaa mashruucan aad arkaysaan oo halkan lagu soo bandhigay sidaa daraadeed anigoo maaragtay fursadan qaaliga kaga faa'iideysanaya naftayda ahaan walaalahayna maaragtay ku boorinayo ku dhiirigelinaya inay maaragtay ka qayb qaataan kambaniga ee cusub ee xagga hawada duulimaadka ganacsigiisa faa'iidada dheeraadkaana laga tusay maadaama ilaahay qofka mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu ku mahadsan yahay mudane Cabdi Guuleed Maxamed wasiirkii hore duulimaadka iyo gaadiidka aqoonta iyo xirfadda ganacsi ee in badan waqtigiisa uu ku bixiyay oo uu la soo noqday walaalihiis iyo deegaankiisa maca dalika runtii waxaan aad uga naxay meesha aan marayno iyo meesha dadku ay marayaan waxay ku fakarayaan iyo horumarka socda iyo meesha la marayo oo waxa kala fog weey maadaama aan horeyna u soconay miirta waana la ka tagay
meel cidlahan fadhinaa ummadii waa dhaqaaqday bas dhaqaaqay baan ka hadlay haddaan nahay raacawda xaqiiqatan waana keligeen gaari dhaqaaqay oo tegay baan ka hadlay meel laami cidlahan taagan oo boor leh war sidaa intay isu dhaanaan tashan marka raacawda oo aan hoos u tashanno aan iska xalino barnaamijkan soo noqonaya wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawladda TFG-da ayaa sheegay imika in ay gobolada qaar aad u horumareen isla markaana imika uu doonayo in bulshada ku nool waqooyiga gobolka Galgaduud ay tiigsadaan horumaradaasi garoonka weyn ee Cabudwaaq International Airport-na ay ka hirgelin doonaan duulimaadyo toos ah oo isaga kala safra gobolada dalka iyo sidoo kale kaargo kala gedisan oo ka yimaada dalka dibadiisa iyo gudihiisa Bashir Yusuf Nadara